kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka channelka xaqiiqa news qodobada aad maanta ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xariga ka jiray dhismaha safaaradda cusub ee Mareykanka Soomaaliya oo isku diyaarinaysa ka faa'iideysiga shidaalka kheyraadka weerarada lagu ugaarsanayo injineerada Turkiga ee ku howlan dhismaha wadada isku xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo soo korodhay tuhun ka dhashay qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyo waaweyn oo mar kale ruuxay Masar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha dibadda maaliyad iyo diblomaasiyiin Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Mareykanka ayaa xariga ka jiray dhismaha cusub ee safaaradda dalkeena ee Washington madaxweynaha ayaa sheegay in hirgelinta dhismihii safaaradeed oo ugu horeeyay ee dawladda Soomaaliyeed ay ku yeelato dalka Mareykanka ayaa muujinaysa mudnaanta dawladdu ay siinayso soo celinta maqaamka dalkeena uu ku lahaa caalamka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku booriyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka in ay wada shaqayn dhow la yeeshaan diblomaasiyiinta safaaradda isagoo tilmaamaya in dhismaha uu yahay hanti ay leeyihiin shacabka iyo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muujiyay dadaalada ay dawladda ku bixinayso soo celinta qaabkii iyo sharaftii dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen caalamka haatan la qorsheynayo si la mid ah tallaabadan in dawladda ay dhameystiri doonto dhismaha iyo dayactirka safaarada kale oo Soomaaliya ay ku leedahay dalalka caalamka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kula dardaarmay diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee Washington in ay si siman ugu adeegaan si ay ugu warqabaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka waa hagaag daawadayaal weli waxaad la socotaan channelka xaqiiqa news Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa ka faa'iideysiga kheyraadka shidaalka shir lagu lafagurayo sida looga faa'iideysan karo kheyraadka shidaalka oo uu leeyahay dalka Soomaaliya oo ay soo abaabushay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya shirkaas waxaa ka soo qayb galay dhammaan maamul goboleedyada iyo khubaro dhanka shidaalka ah oo ka socda dalka Norway waxaana diiradda lagu saaray diyaargarowga soo saarista kheyraadka Soomaaliya gaar ahaan shidaalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabduqaadir Hilaac ayaa sheegay in shirka uu ahaa mid wax ku ool ah ayna muhiimadiisu ahayn in aqoon ahaan iyo xirfad ahaanba loo fahmo loona diyaargaroobo qaabka loo soo saarayo iyo nooca uu yahay shidaalka Soomaaliya waa hagaag weli waxaad la socotaan channelka xaqiiqa news weerarada lagu hayo injineerada Turkiga ee ku howlan dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye xiriirisa oo soo korodhay al-shabaab ayaa kordhisay beegsiga ay ku hayso injineerada gacanta ku haya dhismaha wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye iyadoo dhowr weerar oo qaraxyo ah loo dhigay howlwadeenada ku howlan dhismaha wadadaas xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye weerarkii ugu dambeeyay ayaa Khamiistii la soo dhaafay ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho kaas oo lagu bartilmaameedsaday sarkaal Turkish ah xubnaha lala beegsaday ee Turkiga ah waxay ku howlan yihiin iskuulada ay gacanta ku hayso hay-adda Macriif oo sanadkii 2016 shaqo ka bilowday magaalada Muqdisho iyagoo u kuurgalayay sida ay hawsha wadadaas ku socoto 18 bishan injineer Turkish ah oo saarnaa gaari Hilux ah ayaa lagu qarxiyay inta u dhaxayso jaamacadda Shabeelle iyo Weydow waxaana halkaas ka dhashay dhaawaca injineerka Turkishka ah iyo laba ka mid ah ilaaladiisa 12 May nabaaxiga isgoyska Taleex waxaa qarax lagula beegsaday injineer Turkish ah iyadoo dhaawac daran uu qaraxaas ka soo gaaray isagoona injineerkaas markii dambe u geeriyooday qaraxaas lala beegsaday 12 May waa hagaag daawadayaal weli waxaad nagala socotaan channelka xaqiiqa news shirweynaha qaramada midoobay oo ah madasha ugu weyn diblomaasiyadda caalamka
shirkaas waxaa ka qayb galay hogaamiyayaal ka kala socda ilaa 193 waddan oo xubno ka ah golaha iyo marti sharaf kale oo ka kala timid daafaha dunida. ma ahan markii ugu horreysay ee madax Soomaaliyeed ka qayb gasho shirweynaha qaramada midoobay, ha yeeshee madashan waxay kaga duwan tahay kuwii hore, iyadoo madaxweyne uu la hortagay dunida hoggaan ku raad joogta siyaasad xasiloon, hiigsiga horumar dhaqaale u baahan taakulayn amni iyo iskaashi caalami ah. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo qorshahaas ka duulaya ayaa madaxda iskugu timid shirweynaha qaramada midoobay u sheegay in uu dadaal lixaad leh ugu jiro sidii muranka xuduudda badda ee dalkiisa kala dhexaysa Soomaaliya loogu xalin lahaa wadahadal. khubarada siyaasadeed ee geeska Afrika gorfeeya ayay u muuqataa in Kenya ay lug u laaban tahay. warar xog ogaal ah ayaa sheegaya in Kenya la soo xiriirtay madaxtooyada Soomaaliya si toos ah inta aysan soo helin mudane Al-Sisi, balse madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la taliyaashiisu diideen in Kenya la yeeshaan wadahadal toos ah ilaa ay ka ogolaato in garta maxkamadda ICJ loo daayo. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mudane Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya kaga dambeeyay khudbadda ayaa yidhi Soomaaliya maadaama ay tahay xubin ka tirsan qaramada midoobay ayna qayb ka tahay uguna hoggaansan tahay sharciga maxkamadda caalamiga ah ee ICJ, waxaa ka go-an in ay ka dhowr sugto dhammaadka hanaanka xalka garsoorka. warkii aad kala socoteen channelka Xaqiiqa News daawadayaal waa naga intaa.